السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعن داوديال ملك سو joogtan idilkiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka iyo warbixinada dunida oo aad maalin kasta ka daawataan shabakada wararka ee warqaad tube. maanta waa maalinimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 26 bisha Maarso sanada 2019 qodobada dunida ugu waaweyn ee aan barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Mareykanka oo saxiixay heshiiska uu buuraha Golan Heights ugu aqoonsanayo dhul Yahuud leedahay kadib kulankii uu la yeeshay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. dalalka caalamka oo ka digay in talaabada Trump ay soo dedejin karto dagaal kale oo dhaxmara Carabta iyo Yahuuda. Sacuudiga oo markii ugu horeysay si adag uga hadlay talaabada uu Trump Yahuud ugu aqoonsaday inay leeyihiin buuraha Golan Heights. madaxda Mareykanka oo weerarkii ugu weynaa ku qaaday Ilhan Umar dalbadayna in laga saaro baarlamaanka dalkaasi. boorar waaweyn oo lagu aflagaadeynay Ilhan Umar ayna soo qoreen dad aan ka ah Mareykanka oo lagu dhaxarkay shirkii Yahuuda ee Aybag. wararkeena kale waxa ka mid noqon doona Mareykanka oo xaqiijiyay in uu si weyn uga walwalsan yahay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay geeyeen wadanka Venezuela. wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkii Hamas iyo Yahuuda oo sii xogeystay xilli Masar ay bilowday inay dhexdhexaadiso labada dhinac. muslimiinta Faransiiska oo dacwad la tigsanaya baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter iyo YouTube kadib wararkii New Zealand iyo qorshihii UK ay uga bixisay Yurub ee Brexit la yiraahdo oo god ku sii dhacaya. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku soo qaadi doonaa daawadayaal barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida ee u diyaar garooba daawashada barnaamijkeena. waa hagaag daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo ka mid noqo asxaabta subscribe garaysay channelkeena warqaad tube sidoo kale furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka ugu waaweyn dunida iyo Soomaaliya oo aanu si maalinle ah u soo gelino halkan ee warqaad tube. aan ku bilaawno barnaamijkeena. madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa saxiixay heshiiska uu buuraha Golan Heights ugu aqoonsanayo dhul Yahuud ay leedahay kadib kulan uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Yahuuda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo Isniin ahayd waxa uu saxiixay lahaanshiyaha ay cadowga Israa'iil ay markaasi yeelanayaan buuraha Golan Heights. waxaana xilliga uu saxiixayay agtiisa taagnaa ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu. Trump oo hadlay saxiixa kadib ayaa sheegay in arrintan la soo qorsheynayo muddo dhowr ah waxaana uu sheegay in uu aad u faraxsan yahay. dhankiisa Netanyahu waxa uu ku tilmaamay heshiiskan uu saxiixay madaxweyne Donald Trump isla markaana buuraha Golan Heights uu ugu aqoonsaday dhul Yahuud ay leedahay mid taariikhi ah. ku dhawaaqida madaxweyne Donald Trump ee ah in Golan Heights ay leedahay Israa'iil ayaa imaanaya kadib markii uu aqalka cad ee wadanka Mareykanka booqasho uu ku tagay ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu kaasi oo ay ku soo wajahan yihiin doorashooyin dhici doona 9 bisha Abriil ay soo aadan. sidoo kale Benjamin Netanyahu ayaa la sheegay in uu soo afjaray oo uu soo gaabiyay safarkii rasmiga ahaa ee uu ku joogay wadankaasi Mareykanka. waxaana arrintaas loo aanaynayaa hubiyaasha ay Hamas ku soo weerartay dhulka Israa'iil ay maamusho gaar ahaan meelo u dhow magaalada Tel Aviv halka ciidamada militariga Israa'iilna ay ayaguna duqeyn ilaa iyo hadda ku asqeynayaan qayb ka mid ah marinka Gaza. si kastoo ay ahaato saxiixa uu madaxweyne Donald Trump sameeyay ee ah in buuraha Golan Heights ay leeyihiin maamulka Israa'iil ayaa waxa ay abuurtay carab ballaaran. buuraha Golan Heights waxa iskale dalka aynu walaalaha nahay ee Suuriya waxaana Suuriya looga qabsaday dagaalkii dhacay 5tii bishii Juun 1967 dagaal socday 6 maalmood oo lagu riqmay. dhulka ay ku fadhiyaan buuraha Golan Heights ayaa lagu qiyaasayaa 1800 oo kiiloomitir oo isku wareega. waana dhul qaali ah oo aan laga samri karin. waa dhul istiraatiiji ah oo aad u wanaagsan. wax kastoo ay ahaato Trump hadda sooma bilaabin in Israa'iiliyiinta uu u xagliyo isla markaana uu u dhaco dhul ay leeyihiin walaalaha Carbeed. waxa uu hore ugu aqoonsaday magaalada Qudus caasimadda Yahuuda halkaas oo ah magaalo u barakeysan dadka muslimiinta ah sidoo kalena ay leeyihiin dadka walaalaheena ee reer Falastiin. sidoo kale hore ayuu tallaabooyin kale oo qaldan u soo qaaday waxaana ay hadda joogtaa walaalaha muslimiinta ah ee reer Syria in dhulkooda uu u gacan geliyo dadka Yahuuda ah isla markaana mandaqada bariga dhexe sida xoog ah lagu soo dejiyay. dhanka kalena daawadayaal dalalka caalamka ayaa ka digay in talaabada madaxweyne Trump ay soo dedejin karto dagaal kale oo dhaxmara wadamada Carabta iyo Yahuuda.
waxaana ay si weyn u cambaarayeen go-aanka madaxweyne Donald Trump uu buuraha Golan Heights ugu aqoonsaday dhul ay Israel leedahay. beesha caalamka ayaa cambaaraysay isla markaana sharci darro ku tilmaantay go-aanka halka dhinaca ee maamulka Mareykanku uu Isniintii shalayta ahayd si rasmi ah ugu aqoonsaday buuraha Golan Heights dhul ay Yahuud leedahay. madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay warqadda uu sida rasmiga ah ugu aqoonsanayo in buurahaas istiraatiijiga ah Yahuud ay leedahay, iyadoo Washington ay iska ilowday dadka walaalaheena ee Carbeed ee reer Syria oo dhulkaas xaq u leh. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in marnaba uusan isbedeli doonin mowqifkooda ku aadan Golan Heights ayna u aqoonsan yihiin buurahaas in ay leeyihiin dadka reer Syria. midowga Yurub iyaguna waxay ku celiyeen in mowqifkooda uu halkii taagan yahay, isla markaana ay aaminsan yihiin in buuraha Golan Heights ay yihiin xoog ku haysato oo ay qabsatay 1967. dalka Turkiga ayaa isaguna waxa uu sheegay in Mareykanku uu markaasi ishilmaamsiinayo qawaaniinta caalamiga ah, isla markaana tallaabadii ugu dambeysay ee uu Suuriya dhul aysan lahayn ku siinayo ay u muuqato mid horseedi karta dagaal dhexmara mar labaad Yahuudda iyo Carabta. Mareykanka mar kale ayuu ishilmaamsiinayaa qawaaniinta caalamiga ah, si kastoo ay ahaato go-aanka uu hadda qaatay marnaba ma sharciyeyn doono haysashada Israel ee dhulka Syria ee Golan Heights. wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa bartiisa Twitterka sidaa ku soo qoray. ruushkuna waxa ay dhankooda sheegeen in weli ay taagan yihiin booskoodii hore oo ah in Golan Heights ay tahay dhul ay leedahay dowladda Syria. waxba iskama bedeli doonaan mowqifkeennii hore iyo midkanba. Mikhail Bogdanov oo ah ergeyga madaxweynaha wadankaasi Ruushka Vladimir Putin u qaabilsan mandiqada bariga dhexe iyo Afrika ayaa sidaasi sheegay. wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi Ruushka ayaa iyaduna dhankeeda barta ay ku leedahay internetka ee website-ka waxa ay ku soo qortay in xaaladda qallafsan iyo go-aanka qallafsan ee uu madaxweyne Trump qaatay ay gobolka u horseedi karto colaad kale oo hor leh, sidaas darteedna uu Ruushku ka digayo in Mareykanku u dhabqiyo xaaladda soo hagaagaysa ee mandiqada bariga dhexe. dowladda ay siyaasad ahaan aadka isugu dhow yihiin Mareykanka ee boqortooyada midowday ee Ingiriiska ayaa iyaduna ku celisay mowqifkeeda ah in Golan Heights ay u aqoonsan tahay dhul ay xoog ku haysato Israel. marnaba ma aqoonsan doono haysashada Israel ee buuraha Golan Heights, taasi oo si xooga u soo bilaabatay 1981. xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa sidaasi sheegay. dowladda Spain ayaa iyaduna waxay sheegtay in aysan marnaba aqoonsan doonin tallaabada lagu doonayo in qawaaniinta caalamiga ah lagu burburiyo, isla markaana looga hor yimaado shuruucda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay hore u meelmariyeen. si kastoo ay ahaato wadamada adduunka oo dhan ayaa la safan Syria, waxaana ay hadda ugu baaqayaan Mareykanka iyo Israel in ay joojiyaan colaadda ay dib u soo cusboonaysiinayaan ee mandiqada bariga dhexe. waxay sidoo kale ka digayaan in mar kale ay dib u dagaalamaan Carabta iyo sidoo kale Yahuudda. weli barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida ayaa daawadayaal la socotaane. Sacuudi Carabiya ayaa markii ugu horeeyay si adag uga hadlay tallaabada Trump uu Yahuud ugu aqoonsaday inay leeyihiin buuraha Golan Heights. Sacuudi Carabiya ayaa cambaaraysay go-aanka madaxweyne Donald Trump uu Israel ugu aqoonsanayo in ay leedahay buuraha Golan Heights, iyaga oo sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid qaldan. wakaalada wararka ee Sacuudi Carabiya Saudi Press Agency ayaana talaadadan maanta soo warisay warkan markaasi ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Carabiya ee lagu cambaaraynayo go-aanka madaxweyne Donald Trump. isku day kasta oo lagu doonayo in lagu bedelo qaraaradii iyo shuruucihii caalamka u yaalay waa mid aan suuragal ahayn. Golan Heights-na waa dhul ay leedahay dowladda Carbeed ee Syria, suurtagalna ma ahan in loo aqoonsado Israel. sidaas ayaa lagu yiri warka ka soo baxay boqortooyada wadanka Sacuudi Carabiya. warka ay faafisay wakaalada wararka Saudi Press Agency ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in go-aanka uu saxiixay madaxweyne Donald Trump Isniintii uu si cad u carqaladeynayo qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo qawaaniinta caalamiga ah, iyagoo hoosta ka xariiqay intaas ay horseedi karto colaad kale oo hor leh oo ka dilaacda mandiqada bariga dhexe.
sacuudiga iyo dalal kale oo carbeed oo mandiqada bariga dhexe dhaca ayaa hore lagu eedeeyay inaysan ka hadlin go'aankan markii uu khamiistii la soo dhaafay madaxweyne Trump ku soo qoray barta uu Twitter-ka ku leeyahay. docda kalena khubaro ayaa waxa ay ka digaysaa in go'aanka madaxweyne Donald Trump uu buuraha Golan Heights ugu aqoonsaday dhul ay Syria leedahay in dagaal kale ay horseedo. khubaradan ayaa waxa ay sheegayaan in go'aankan uu horseedi karo colaad kale oo hor leh oo mandiqada bariga dhexe ka bilaabata, waxaana ay sheegayaan in dhulka Syria oo la bixiyo ay keeni karto khatar kale oo ku aadan dagaal dhexmara labada dhinac. Fawaz Jargis oo ah professor xiriirka caalamiga ka dhiga macadka dhaqaalaha ee fadhigiisu yahay London ayaa waxa uu sheegay in go'aanka madaxweyne Donald Trump uu horseedayo in uu dhammaanba burburo wadahadaladii nabadda ee mandiqada bariga dhexe ee Israel iyo Falastiin, sidoo kalena uu abuuri karo colaad kale oo hor leh. waxa uu sidoo kale tilmaamay in Washington markii hore loo arkay in ay tahay dal dhexdhexaad ah oo isku keeni karta wadamada Carbeed iyo Yahuuda, hase ahaatee hadda ay u muuqato Washington mid dhinac la safan. khubaradan waxay sidoo kale hadda tilmaameen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin kale oo markaasi dib loogu soo celinayo nabadda iyo isfahankii muddooyinkan dambaba ka jiray mandiqada bariga dhexe. qaybihii dambe ee barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida ayaan isla soo gaarnay. daawadayaal, muslimiinta ku dhaqan wadankaasi Faransiiska ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay dacwad ka gudbinayaan 3 shirkadood oo xagga internetka ku shaqeysa, waa Facebook, YouTube iyo Twitter. bulshada muslimiinta ah ee wadanka Faransiiska ku dhaqan ayaa waxay hadda wadaan qorshe ay ku dacweynayaan 3daasi shirkadood, waxaana dacwadooda ay ku qotantaa dhacdadii dadka muslimiinta lagu xasuuqay ee ka dhacday wadanka New Zealand 15 bishan Maarso. waxa ay leeyihiin ninkii falkaas geystay ee Australia ka soo jeeday ee cadaannimadu ay madax martay, waxa uu markaasi si toos ah ugu baahinayay bay leeyihiin xasuuq oo dadka muslimiinta u geysanayo Facebook. marka sidaa darteed looma baahna inay leeyihiin arrintan 17 daqiiqo ayuu ninkan si toos ah ugu jira Facebooka. waxa ay ku doodayaan in loo baahan yahay in dhaqamada noocaasi oo kale ay shirkadahan wax ka qabtaan, isla markaana loo baahan yahay in magdhow iyo ciqaabba la marsiiyo Facebook iyo shirkadaha kale la midka ah marka la eego kiiskii dadka muslimiinta lagu laayay ee New Zealand ka dhacay. Abdullahi Sakri oo madaxweyne u ah golaha muslimiinta ee wadankaasi Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in muslimnimadu ay hooy u noqotayba Facebook iyo baraha kale ee internetka laga isticmaalo sida YouTube, taas oo sheegay in loo baahan yahay in gudaha dalka Faransiiska wax laga qabto kambaniyadaasna la ciqaabo. si kastoo ahaato muslimnimada ayaa ku sii fidaysa meelo badan oo dunida ah, inkastoo si aada loo cambaareeyay. kambaniyadan Facebook, YouTube iyo Twitter ayaa dhawaantan la dhaleeceeyay markii baraha bulshada si toos ah looga daawanayay dadka muslimiinta ah oo lagu xasuuqayo masaajida ku yaala wadanka New Zealand. ugu dambeynna daawadayaal, haddaanu fiirino colaadda u dhaxaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa weli sii wada baa leeyahay duqeynta ay ku hayaan marinka Gaza, inkastoo ay soo baxayeen warar sheegaya in xabad joojin ay Masar dhex dhigtay labada dhinac. dad goobjoogayaal ayaa soo wariyay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeyn ku asqeeyeen dhowr xaafadood oo ka tirsan marinka Gaza, waxaana ay bartilmaameedsadeen xaafado ay leeyihiin hogaamiyaal ka tirsan kooxda Xamaas ee marinka Gaza maamusha. ciidamada wadanka Israa'iil ayaa waxa ay xaqiijiyeen in diyaaradooda dagaalka ay 15 bambaano ku dhufteen marinka Gaza. kooxda Xamaas ayaa goor dambe Isniintii shalay tahay ku dhawaaqday in Masar ay xabad joojin dhex dhigtay Israa'iil iyo sidoo kale Falastiiniyiinta, inkastoo aysan Israa'iil iyo Masar labadooduba midna xaqiijin. ugu dambeynna Israa'iil ayaa waxa ay bilowday in ay gantaaladeeda difaaca ee la yiraahdo Iron Dome ay u daabusho xuduudaha dalkeeda si ay uga hortagto weeraro hoobiyaal iyo madaafiic oo kaga imaan kara kooxda Xamaas ee Falastiiniyiinta. Iron Dome oo ah gantaalo kuwa markaasi casriga ah difaaca ayaa lagu soo waramayaa in la dhigay meelo fogfog oo xuduud beenaadka Israa'iil ay markaasi maamusho ah, waxaana la sheegayaa in Israa'iil ay uga leedahay in ay kaga hortagto weerarada hoobiyaasha ee lagu soo qaadayo dhulkooda. 7 Israa'iiliyiin ayaa la xaqiijinay ku dhaawacmeen weeraro hoobiyaal ah oo ay Xamaas ku asqaysay qaybo kamid ah dhulka ay maamusho Israa'iil. Ra'iisul Wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa safarkii uu ku joogay Mareykanka soo gaabiyay, waxaan ugu wacan weerarka ay Xamaas ku soo qaaday dhulka Israa'iil ay maamusho. maadaama ninkan ay ku soo wajahan yihiin doorashooyin, waxa uu doonayaa hadda inuu xaaladda qaboojiyo. intaas ayaan ku soo afmeerayaa daawadayaal barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida oo aad ka daawanayseen shabakada wararka ee Warqaad Tube.
qaybta labaad hawday malaanina waxaan ku soo qaadi doonaa warar kale oo xiiso leh inta ka horeysa nabadgelyo.